السلام عليكم أصحابتا كسو دوادا muuqaal cusub maanta muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugu soo gudbiyo laba waqti oo ay mamnuuc tahay in la galo qolka hooyo iyo aabo haddaba haddii aadan aqoonin labadaas waqti muuqaalkan adi ayuu ku anfacayaa ee daawo oo si fiican u dhammayso la wadaag inta aad taqaanid oo aanan ogeyn labadan waqti haddaba labada waqti aan ku soo gudbinayo waqtiga ugu horeeyo ay mamnuuc tahay in la galo qolkii hooyo iyo aabo waa gelinka hore waqtiga loo yaqaano duhurkii oo la hergalo qof walban wuu yaqaanaa wixii ka bilowdo 7 saac ilaa 9 saac waqtigaasi waa waqtigii hooyo aabo nasal lahayeen ay sheekaysan lahayeen waana mamnuuc waxaana naga mamnuucday diinteena suuban ee wanaagsan xataa haddii aad daruur u tahay waxaa fiican inaad sugtid inta laga gaarayo waqtiga ay ka soo baxayaan ama waqtiga ay banaanka ka soo aadayaan waqtiga labaad mamnuuca ay tahayne waxaa waaye habeenkii bacdal cishaha cisho wixii ka dambeeyo hooyo aabo qolkooda mamnuuc ayuu ka yahay inaad gashid mar alla marka aad galaysid waa inaad daruuri u ahaataa oo aanan laga maarmi karin sida inaad arin aad iyo aad u weyn aad u sheegayso oo kale waxaana samaynaysaa irid ayaad gargaraacaysaa ama mobilka ayaad ka wacaysaa waayo waa mamnuuc qolka hooyo aabo inaad iska gashid waa mamnuuc bacdal cisho iyo bacdal duhur waa labada waqti ee diinteena naga mamnuucday in aan galno qolka hooyo aabo haddii aadan hore u ogeyn hadda ayaan kula wadaagay waxaan rajaynayaa in fiidiyogan wax ka faa'iiday haddii aad wax ka faa'iiday waa ii farxad haddii aad wax ka faa'iidayn qof wax ka faa'iida ayaa jiray share dheh like na saar comment-na ka soo bixi wix fikirkaaga ah saad ila wadaagtid haddii aad jeceshahay inuu ku soo gaaro muuqaalada aan soo wado gambareelka furo oo subscribe na saar waana mahadsantahay halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa muuqaalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu